Waan idin salaamay saaxiibayaal. Filimku wuxuu ku bilaabanayaa dhamaadka sanadkii 1999 taasoo 31 Diseembar. Waxaan la kulannaa Ellie oo ah wiil aad u xiiso badan, xitaa lama hadal Laura oo ah gabadha aad u jecel yahay isku fasil yihiin. Inkasta oo saaxiibkiis Danny uu hadda jir ku dhiirigelinayo. Hadda Ellie wuxuu joogaa dukaan halkaas ay Laura iyo kooxdeeda yimaadeen. Halkaas ayuu Danny ku dhiirigelinayaa inuu la hadlo Laura. Ellie wuxuu la hadlayaa Laura isagoo is dhiirigelinaya balse codkiisa si cad ayuu u muujinayaa cabsi iyo walaac. Intii ay wada hadlayeen Laura waxay u sheegtay in uu buuriyay wiilkeedii hore. Markaas Ellie wuu faraxay si la yaab leh, farxadiisa lama qarin karin. Laura waxay u sheegtay Ellie inay u socoto xafladda sanadka cusub ee Jaris ay isku fasal yihiin, laakiin casuumadda xafladdaas kama helin Ellie. Wuxuu gurigiisa ku laabtay isagoo murkaysan halka uu Danny ku canaantay kuna yiraahdo waxaa tahay fuli, sababtoo xitaa si fiican uguma hadlin gabadhii aad jecleed. Ellie isaguna wuu xanaaqay wuxuuna bilaabay inuu cabo khamri. Marka ay labadooda cabeen waxay go'aansadeen inay aadaan xafladda Jaris inkastoo aan la casuumin. Ellie wuxuu isku dayay inuu la hadlo Laura, laakiin Jaris iyo kooxdiisa ayaa yimid oo Laura kaxeeyay. Ellie wuu murugooday wuxuuna u tagay Danny, laakiin Danny wuxuu bilaabay inuu ka faalloodo Ellie si uu gabdhaha ugu muuqdo geesi. Tani waxay si xun u dhaawacday niyadda Ellie wuxuuna damcay inuu ka cararo xafladda. Wuxuu kor u aaday qolka sare halkaas uu ku arkay laba arday oo isku soo dhawaanaysa. Wuxuu dareemay ceeb badan wuxuuna xiray albaabka isagoo hoos u degay. Halkaas ayuu mar kale kula kulmay Laura, taasoo aad ugu dhaweyd Jaris. Laura wax ay dhukuntay Jaris, taasina Ellie waxay ka dhigtay mid aad u murugaysan. Intaa kadib Danny ayaa u yimid wuxuuna bilaabay inuu ku raarigeliyo wuxuu ku sameeyay. Wuxuuna u sheegay inuu sidaas u sameeyay oo kaliya inuu gabdhaha ku soo jiito. Ellie wuu qoslay laakiin dhab ahaantii aad buu u murugaysanaa. Isagoo hadlaya iftiinkii ayaa bilaabay inuu dilaaco. Kadibna iftiinkii wuu damay, haddana si lama filaan ah u shidmay. Markii iftiinka damay gabar ayaa qaylisay. Ellie wuxuu galay qolka wuxuuna arkay gabadhii oo meel ku dhuumanaysa. Wiilkii la joogay gabadhaasi waa uu dhintay. Dadka aan waxba ka fikirin wax ay bilaabay inay gabadha ku eedeeyaan, iyagoo la gabadha ayaa wiilka dishay. Gabadhii way cabsatay, Laura waxay fadhiisatay si ay u daryeesho. Gabadhii waxay sheegtay in markii iftiinka dalsanaa ay wax walba caadi ahaayeen, laakiin markuu iftiinka shidmay wax walba isbedeleen. Waxay ka baqday wax dhacay. Markii la murmayay baabuur yar oo caruureed ayaa si tartiib ah u soo socday. Dadka oo dhan way yaabeen. Baabuurkaas wuxuu lahaa laba gacmood. Wuxuu soo saaray buufin wuxuuna ku jeediyay wejiga wiil kale. Dadka oo dhan way qosleen, laakiin markaa baabuurkii wuxuu shiday gacan kale oo damayay birta shidka, kaasoo buufinta ka dhigtay mid olol keenta. Wejiga wiilku wuu gubtay wuxuuna ku dhintay halkaas. Markay arkeen dhacdada naxdinta leh, carruurtii wax ay bilaabeen inay si xad dhaaf u naxaan. Qaska dhexdiisa qof walba wuxuu bilaabay inuu cararo. Xaaladdu way sii xumaatay markii dhammaan qalabyada korontada halkaas yaalay ay bilaabay inay soo weeraraan dadka. Mashiinka wax shiida ayaa weeraray gabadh. CD-yadii waxay ka soo baxeen DVD-ga waxayna bilaabay inay weeraraan qof kale. Xitaa badhamadii korontada ayaa soo baxay oo dadkii kale ku dhacay. Halkaas waxaan ku arknaa Laura, Ellie iyo Danny oo wada taagan. Waxay u muuqdaan kuwo aan fahmin waxa dhacaya. Markaas Jaris ayaa yimid wuxuuna Laura weydiistay inay la socoto, laakiin Laura way diiday waxayna tiri gabadhan sidaan uguma tagi karo. Jaris wuxuu yiri xaaladda adag waa inaan nafteena badbaadsanaa oo kaliya, inaan dad kale ka fikirto waqti sidaan ah waa doqonnimo. Markuu taas yiri ayuu dhabarka jeediyay wuxuu rabay inuu halkaas ka tago, laakiin si lama filaan albaabka foornada ayaa furmay, lugtiisana way jarantay. Foornada ayaa gudaha u jiidatay, heerkulkeedii aad buu u kacay ilaa uu ku dhinto Jaris. Markay arkeen taas saddexdii saaxiib waxay go'aansadeen inay si degdeg u helaan gabadha kale si ay ula cararaan. Markii Danny gaaray meesha gabadha wuxuu arkay muuqaal cabsi leh. Qodax wareegiisa ayaa u soo socotay dhanka gabadha. Qodaxdii waxay si toos ugu dhufatay jirka gabadha wayna dishay. Kadibna waxay u jeesatay Danny inay disho, laakiin Danny wuu ku booday wuuna iska difaacay wuxuuna burburiyay mashiinkaas. Hadda dadkii oo dhan waxay orod ku galeen garaas, laakiin Laura, Danny iyo dhowr arday ay halkaas ku heray kuwaas oo aan fahmin wax la sameeyo xaaladda adag. Markii ay dadkani ka fikirayaan dhammaan waxay dhacay, wiil ayaa yiri aniga waan ogahay tani waxay tahay, tani waa Y2K. Qof walba wuxuu weydiiyay Y2K waa maxay taas. Wiilkii wuxuu yiri waa cilad. Waxaa jira warar badan oo la faafiyay in markii sanadku uu gaaro 2000 Y2K ay khalaad keeni doonto dhammaan kombiyuutarada, waxayna baabi'in doontaa dhammaan tiknoolajiyada. Laakiin cidna ma filinayay in Y2K ay dadka ku weerari doonto aaladaha korontada, isla markaana ay dadka bartilmaameedsan doonto. Adduunka waxaa ku jira qalab elektaroonig aad u fara badan. Haddii dhammaan sidaas u dhaqmi lahaayeen, markaas waxaa iska cad in fursad dad ku badbaadan ay yaraan lahayd. Wiilku wuxuu yiri haddii aan rabno inaan badbaadno waa inaan tagnaa meel aan wax koronto lahayn. Markaas Laura si degdeg bay u sheegtay warshad. Halkaas shaqada oo dhan lagu qabto mashiino gacanta, meeshaas koronto iyo kombiyuutar toona ma yaalin. Waa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxnaa warshadaas. Markaas dadkii waxay bilaabay inay qaataan qalab kala duwan si ay si degdeg
guriga ugu tagaan, sida baaskiil, loox, ciyaarta. Qaarna waxay qaateen kabaha looga talagalay skatingka. Danny wuxuu xasuustay inuu leeyahay boorso, taas waxay ahayd mid aad ugu muhiim ah. Markuu damcay inuu u laabto si uu u soo qaato, robot ayaa ka soo baxay albaabka gadaashiisa kana weeraray. Wuxuu ku dhiftay bir laf leh taasoo jidhkiisa ka dhigtay mid dhaawacanta oo halkaas ayuu ku dhintay. Ellie wuu orday si uu badbaadiyo, laakiin Danny waa uu dhintay. Ellie wuu murugooday, geeridiisuna aad bay u taabatay. Hadda ma doonin inuu halis geliyo qof kale, wuxuuna go'aansaday inuu ka tago saaxiibkii Danny isigoo la baxaya dadka kale. Markuu banaanka u baxay, tower koronto ayaa jiidatay mid ka mid ah kooxda, wayna dishay. Geeri kale oo gidis ayaa naxdin u keentay, laakiin waqti murugo ah ma jirin. Dadka intiisa kale way sii socdeen. Waxaan aragnaa gadaal robotkii dilay Danny ayaa ka soo baxay, wuxuuna ka soo saaray wax jidhka meydka, wuxuuna ku rakibay jirkiisa, taasoo ka dhigtay barnaamijka mid aad u sii xooganaysa. Kooxdii waxay weli ku sii jeedeen warshada, laakiin marka ay gaareen keenta waa ay daaleen. wax kale oo meesha ka jirta mugdi aad u badan. Markaas dadkii waxay go'aansadeen inay halkaas ku nastaan. Halkaas waxay ku haystaan hal ammaan, waa inaysan haysan qalab elektaroonig ah. Laakiin markaas ayay ogaadeen in mid ka mid ah kooxda ay haysato kaamira, taasoo khatar u keeni karta. Dadkii waxay u sheegay inay iska tuurato kaamirada, waxayna u sheegay inay khatar ku noqon karto dhammaantood. Laakiin gabadhii ma aysan tuurin kaamirada, wayna xanaaqday, waxayna ka dhaqaaqday dadka intiisa kale. Wiil kale ayaa damcay inuu qanciyo. Dhanka kale, Ellie wuu fadhiyay isigoo la murugaysan geerida saaxiibkiis Danny. Laura ayaa u timid si ay u taageerto kadib markii ay yaranasteen, waxayna sii wateen safarkooda. Waxay u baahnayeen inay fuulaan meel sare, baaskiilka iyo looxa midkood ma shaqaynaynin, halka oo laga arki karo magaalada oo dhan. Markay arkeen way la yaabeen, waxay arkeen in magaalada oo dhan hadda ay burburtay. Qof walba wuu fahmay in dhibka uusan ayaga keli ku koobneen. Waxaa noqotay xaalad adag oo caalami ah. Dadka adduunka waxay ku jireen khatar isku mid ah, dhib isku mid ayaa haystay. Ugu dambeyn dadkaasi waxa ay gaareen warshadii. Nasiib wanaag, Ellie wuxuu halkaas ku lahaa saaxiib iyo dad kale oo badbaaday. Markuu saaxiibkii weydiiyay Danny, Ellie wuxuu noqday mid aad u murugooda. Wiilkii wuu fahmay in Danny uusan noolayn. Ninkii hore ee saaxiib u lahaa Laura ayaa halkaas joogay. Markay aragtay Laura, waxay si degdeg ah u siisay, taasi wax ay kordhisay murugada Ellie. Marka ay ka wada hadlayeen sida dhibkan looga baxo si lama filaan ah, saaxiibkii Laura wuxuu arkay robot banaanka jooga, wuxuuna keenay gudaha. La yaabka ugu weyn wuxuu ahaa in robotkaasi caadi u shaqayn uu weer ku geysan lahaa. Markii la shiday ayuu ogaaday in dhammaan barnaamijyada robotkaas ay ahaayeen kuwa Ellie uu qoray. Markuu arkay taas, Ellie wuu xasuustay in Laura ay ku wanaagsan tahay dhanka barnaamijyada, haddii barnaamijyadiisu way jebin kartaa dhammaan qalabka elektarooniga ah. Laakiin Laura kalsooni buuxda nafteeda kuma qabin, laakiin hadda ma aysan haysan wax kaloo ikhtiyaar ah. Marka Laura waxay go'aansatay inay isku daydo. Markii hore waxay ku xireen robotka xarka si uusan ugu dhicin waxyeelo. Laura waxay bilowday shaqadeeda, waxay samaysay koodka ay ku jebin kartaa dhammaan qalabka mar qura. Halkaas robotku wuxuu u sheegay Laura qorshihiisa oo dhan, wuxuuna sheegay in bini'aadamka internetka u sameeyay faa'iido, laakiin markii dambe internetkii ay u adeegsadeen waxyaabo xunxun. Dadku wax ay bilaabeen inay si khaldan u adeegsadaan qalabka elektarooniga ah, taasina waxay keentay in mashiinada iyo robotyada ay caroodaan. Waxayna go'aansadeen inay dadka tusaan meeshooda saxda ah. Waxay abuureen qorshe inay cabsi geliyaan dadka ayna diliyaan si ay u hantaan xanuun. Waxay wahabgelin doonaan dadka intooda kale oo haray, waxay ka dhigi doonaan kuwa iyaga xukumo oo amarkooda ku shaqeeya, taasoo keeni doonta in robotyada ay helaan awood dheeraad ah. Laura waa ay baqday marka ay maqashay waxaas oo dhan, laakiin weli waxay sii waday koodkii. Ka hor inta aysan dhamin, robotkii wuxuu isku xoreeyay inuu soo weeraro dadka. Xaaladdu waxay noqotay mid aad u halis badan. Robotkii wuxuu si xun u qabtay Laura. Ka hor inta uusan dilin Laura, wiil la yiraahdo Code ayaa ku shubay biyo koob kalaas ah robotka, taasoo keentay in nidaamkiisa korontada uu go'o. Robotkii wuxuu ku dhacay dhulka. Laura way badbaaday, laakiin shaqadii dadaalka badan ee u soo gashay Laura si ay u dhisto Code dhammaantood waa ay badbaadeen. Hadda maxay sameeyeen? Qofna waxba ma fahmin. Si kastaba waxay go'aansadeen inay halkaas ku sugnaadaan habeenkii inta lagu jiro. Ellie wuxuu arkay in xiriirka Laura iyo saaxiibkeedii hore dib u soo kabmayo, wuxuuna dareemay kelnimo ka badan tii hore maadaama uusan xitaa haysan saaxiibkii Danny. Wuxuu go'aansaday inuu halkaas iska fadhiisin haddii uu kaligiis yahay, uma baahna taageero cid kale. Isaga laftiisa waa inuu noqdaa garab dadka kale, dadkii kale oo weli ku xayirnaa magaalada. Wuxuu u socday inuu caawiyo dadkii sidii uga bixi lahaayeen dhibaatada. Wuxuu la midoobay laba qof kale si ay hoosaas ula fuliyaan. Waxa ay bilaabay inay u socdaan cudurka habeenka. Ka hor inta aysan bixin, Laura ayaa timid, waxayna ku tiri inuusan sidaas sameyn sababtoo waxay khatar gelin kartaa nolosha Ellie. Haddii Danny uu noolaan lahaa, waxaan la qol lahaa mid weligiis iska fadhin, wuxuuna imaan lahaa si uu noo caawiyo. Markay aragtay sida uu adag yahay, Laura wax ay tiri, haddii sidaas tahay anigan waa idin raacayaa. Laakiin Ellie wuxuu ku jawaabay, adiga kuma baahin naftaada u noolow. Si kastaba haatee, maxaad u jeclaan lahayd inaan la noolaato anagoo ah kuwa aad u guuldaraystay? Markaasay ahayd markii ugu horeysay Ellie si kalsooni leh ula hadlo Laura. Wuxuu u sheegay erayo murugo leh, laakiin Laura ma xanaaqin, sababtoo ah
way ogeed in Ellie hadalkan ku hadalay ka keentay murugo awgeed. Kadib markii ay bixeen, Laura waxay go'aansatay inay sameyso koodka. Markan uu ku guuleysatay xitaa iyadoo waqti badan ka bixin. Halkaas Ellie, Ash iyo saaxiibada ay socdeen. Markaas robootkii hore ayaa soo baxay wuxuuna ka qaaday kaamirada saaxiibkii Ellie. Wuxuuna ku weerar ka hor inta uusan waxyeelo u geysan. Laura ayaa iidan ka soo muuqatay dhabarka. Markii ay la yimaadeen saaxiibadeed wax ay dareemeen nafis si ay u badbaadiyeen waxay u go'aansadeen inay isdifaacaan. ugu horreyn saaxiibka Ellie wuxuu weeraray robootka laakiin ma awoodin inuu la dagaalamo. robootkii ayaa ka adkaaday wuxuuna si degdeg ah u dilay. geeridiis waxay ku rideen yaab iyo argagax. Dhammaantood waa ay baqeen. Si ay isku badbaadiyaan waxay isku qariyeen musqul qaadan karo. robootkii ayaa isku dayay inuu qabto si uu u soo weeraro. xitaa wuxuu qabtay bacdi Ellie watay, laakiin Ellie wuu isku tuuray bacdi wuxuuna xiray albaabka musqusha. robootkii careysan ayaa riixay musqusha, wayna sibirxoodeen oo hoos u dhaceen. Ilaahay baa mahad iskale, way ka badbaadeen shilkaas waxayna ku dhaceen agaarka webi. halkaas ay biyo ka caban weyn isniidifiyeen. waxay u dhaqaaqeen magaalada si ay ugu laabtaan. waxay gaareen dukaan magaalada ku yar halkaas oo ay ku yiraahdeen qalabka elektarooniga ah. waxay halkaas ku arkeen in fanaankii ugu caansanaa magaaladu halkaas joogay. waxay la yaabeen markay arkeen wuxuu yiri, dhammaan asxaabteedii waxaa dilay qalabka elektarooniga ah. anigu halkaan ayaan isku soo qoriyay si aan ugu badbaado. Laura ayaa u sheegtay inay sameeyeen kill code kaasoo jebin kara dhammaan qalabka elektarooniga ah, isla markaan joojin kara xasuuqa ay wadaan. dhab ahaantii qalabkan oo dhan waa mid barnaamij ahaan. haddii koodkan lagu daro barnaamijkaas, dhammaan qalabkan wuu dimi doonaa. Laura waxay sidoo kale ogaatay in barnaamijka lagu sabadkadeeyo. barnaamijkan waxaa lagu maamuli jiray dugsiga sare. si ay u dhameystiraan hawshooda waxay ahayd inay tagaan dugsiga sare. ayagoo aan wax buuq sameyn wax ay gaareen dugsiga sare. halkaas ayay kula kulmeen xarunta kombiyuutarada. waxayna arkeen kombiyuutaradii ugu weynaa ee adduunka. halkaas ay robots ku maamuli jireen wax kasta. ka hor inta aysan ku shubin barnaamij koodkooda, robot yar ayaa yimid wuxuuna bilaabay inuu weer ku qaado si u badbaadin Laura iyo asxaabtooda. mid ka mid ah saaxiibadood wuxuu qaaday dhammaan weeraradii robotskaas. ugu dambeyn wuu dilay robotkii. waxayna u gudbeen qolka xiga. waxayna arkeen muuqaal argagax leh. robotskaas waxaa si degdeg ah u wada shaqadooda. waxay xireen dad bini'aadam ah. hadda waxa ay ku rakibeen jibiskooda si ay si buuxda ugu maamulaan dadkaas. xaaladda waxay ahayd mid aad u xun. halkaas fanaankii caanka ah si uu dareenkeeda ugu jeediyay meel kale wuxuu bilaabay inuu hees qaado. dabadeed Laura waxay bilowday shaqadeeda. dhowr daqiiqo kadib koodkii kill code wuxuu ku soo degay barnaamijkood. isla markaan dhammaan robotskii alka ahaa way istaageen. taasi waxay la micno tahay in hawshii lagu guuleystay. dhammaan qalabkii elektaroonig ahaa kuwaasoo wax walba burburinaya way wada dhaceen. kadib waxaa nala tusiyaa muuqaal 5 sano oo kadib ah. waxaa la arkaa Laura iyo Ellie isla jooga. waxay tageen xabaasha Jenny si ay u xasuustaan. carruurta weli way xasuustaan saaxiibkood inkastoo qaladkii alga ahaa uu dhamaaday. laakiin waxaa la arkay had cilad ku timid mid ka mid ah aaladahooda. waana halkaas Laura iyo saaxiibadood ku ogaadeen in nidaamka algaas uusan si buuxda u dabargo'in. weli wuxuu keeni karaa dhibaato cusub. maxaa khatar oo markaan imaan kara? su'aashaas mugdiga ayuu filimku dhamaaday.